qofku markuusan reer lahayn xaaladiisu ma sugna, qalbigiisu ma degana. laakiin markuu reer yeesho oo xaas yeesho, markaasba wuxuu gelayaa liiska bani aadamka jira ee nool buu gelay. gurigii hebel baa la leh, gurigii hebel. hadduusan reer lahayn meeshuu rabu iska seexdaa, waad aragti. haddii masjidkan uu cishaha ku tukado iska seexdo lalama yaabay. laakiin markuu qoys yeesho, bulshadii buu ka tirsan yahay, waa lagu xisaabtamaya, waa lagu soo hoyanaya, waa la martinayaa. baahidii bulshada ayaa lagu xisaabsanaya, waxbaa lagu qoranayaa. sharaftiisii oo dhan baa bannaanka imanaysa. laakiin mas-uuliyad baa daba socotoo xil buu qaadayaaye wax iska galo iska soo baxa maa. habeenkaas koowaad marka shareecadu waxay noo jidaysay aadaab suurtagal ka dhigi karta in ilmahan calool geli doona uu noqdo ilmo saalixa. nebigana calayhi salaatu wasalaam markuu la talinayo wuxuu ku yidhi ninka iyo xaaskiisa aqal gelaya waxa kaloo dhan iska hilmaamayso. hadalkiisa waxaa ka mid ah: amaa ina axadakum idaa ataa ahlahu. waana habeenka koowaad iyo wixii ka dambeeya oo dhan wey. axadkiin markuu reerkiisa la kulmayo, xaaskiisa la kulmayo, uu xalaasha ah, hadduu yidhaahdo bismi illaah, allaahumma jannibna ashaytaan wajannib ashaytaana maa rasaqtana. ilaahayu magacaagan ku bilaabaynaa guriga, kulankaan barakaysanna magacaagan ku bilaabayna. ilaahayu shaydaan naga foge, waxaad nagu arsaaqtana shaydaan ka foge. hadduu yidhaahdo, soo ma arkaysi, annaga shaydaan naga foge, waxaad nagu arsaaqaysidna shaydaan ka dheere. hadduu saas yidhaahdo, waladna lagu arsaaqo, waxaa la rajaynayaa inuusan shaydaan ku dhigin.